أرضي بانها يو وبحي ودن كانها يو. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. According to the word of the Prophet, any activity not begun with the words in the name of Allah, the most gracious and the most merciful, is separate from its blessing. Also, we are going to thank Allah who allowed us or who give us help. Many thanks to Allah who allowed to start in this unit. Today we are going to study the third section of our lesson, and this chapter was unit 5 and unit 6. And ardayda diilahay inshallah maanta waxaan dhiganaynaa cutubkeennii shanaad sectionkiisii saddexaad oo noqon doona English grammar lesson waana phrasal verbs. So that bal waxaan marka hore ku bilaabaynaa su'aasha waa maxay phrasal verb? Waa su'aasha koowaad ee ku jawaabayno what is a phrasal verb? Phrasal verb waxa weeyaan waa ficil ka kooban 2 or 3 words, not only one word. hal eray maaha, waa ficil ka kooban 2 ama 3 eray ayaa la yiraahdaa phrasal verb. Ka waxaan phrasal verb waxa weeyaan is a verb waa ficil, is a verb waa ficil consist of ka kooban 2 or 3 words, 2 ama 3 eray ka kooban. haddaba markaan leenahay 2 ama 3 eray ka kooban, shardi waxaa first word is a verb in erayga koowaad ficil noqdo waa shardi, and the second word is particle, erayga waa leen noqdo particle. ka waxa weeyaan 2 or 3 words ka shuruudda ku xidhan waxa weeyaan first word is a verb. First word erayga koowaad waa inuu noqdaa verb, erayga koowaad waa inuu noqdaa ficil, waa shardiga koowaad weeyaan taas. And the second word is particle, erayga labaadina waa inuu noqdaa particle, waa inuu noqdaa erayga labaadina. This is the second word, eraygii labaad buu kale noqonayaa marka. Okay. haddaan si yaro kooban ugu celiyaan mar, phrasal verb is a verb that consists of 2 or 3 words. First word is a verb and the second word is particle. si yaro taa ka fudud baynu odhanayna. haddii laynu weydiiyo waa maxay phrasal verbku, keliya waxaad ku soo koobaysaa phrasal verbku waxa weeyaan verb plus preposition, waxa weeyaan verb plus preposition or amase verb plus adverb. waka particle kan waxa la isku dhahdaa 2 nooc oo kamid ah 8 parts of speech ka. mid wuxuu noqonayaa preposition ayuu noqonayaa, kala wuxuu noqonayaa adverb oo ah falkaabkii ayuu noqonayaa. marka waxaad tidhaahdaa phrasal verb waa ficil ka kooban 2 ama 3 eray, erayga koowaad waa inuu noqdaa verb, ka labaadna waa inuu noqdaa preposition ama adverb. marka preposition iyo adverb kala isku particle. labadaba intaan mar tusaale ka bixinaynaa, tusaale waxaan soo qaadanaynaa eray yar oo aad u kooban. imka tusaalahan come in, waxa weeyaan erayga halkaa ku qoran come in waa 2 words way haragnaa. first word is a verb, erayga koowaad baa verb and the second word is particle, kii labaadna waa particle. imika kan waxaan odhanaynaa phrasal verb. tusaale kale haddaan ku xigsiya waxaan odhanaynaa go out, sit down, speak up. ayaan odhanaynaa speak up. erayada imkaan halkaa ku qoray dhammaantood waa 2 words, waana phrasal verb baan odhanaya. haddaba qaar baa jira 3 words ah. tusaalahan waxaan odhanayaa come up with. haye eraygan waa 3 words, waa 3 eray, waa come iyo up iyo with. waynagana phrasal verbku waa ficil ka kooban 2 or 3 words, 2 ama 3 eray. 3 eray waa kuwan. haddaan eray labaad ku xigsiiyo kale waxaan odhanaynaa get away with ayaynu odhanaynaa. okay. marka ardayda su-aasha kuwa jawaabteeda waan haynaa. haddii layna weydiiyo maxay phrasal verbku, keliya waxaad kaga jawaabaysaa phrasal verbku waa ficil ka kooban 2 ama 3 eray, erayga koowaadna uu verb yahay, ka labaadna uu particle yahay. Here is the example. tusaalihiina waa kan
سؤال لبعض كلمتين نحويان how many types of phrasal verbs are there إمسا نوع phrasal verb يا بيجا ولا نوع phrasal verb يا بيجا هويان types of phrasal verbs ونوعية phrasal verb يا There are two main types of phrasal verbs waxaa jira laba nooc oo waaweyn oo phrasal verb ah labada nooc waxa la kala yiraahdaa mid waxa la yiraahdaa literal phrasal verb waxa la yiraahdaa literal phrasal verb ayaa la yiraahdaa ka labaadna waxa la yiraahdaa idiomatic phrasal verbs idiomatic phrasal verbs labada nooc ayay u qaybsamaan su'aasha waxaa tahay maxay literal phrasal verb ku soo maxay idiomatic phrasal verb literal phrasal verbs waxa kala maaha waa erayo phrasal verb oo siday u qoran yihiin loo macnayn some of phrasal verbs have direct quite clear meaning to understand waxay leeyihiin macna cadaana erayo macna cadaana leh oo siday u qoran yihiin loo fahmi karo idiomatic phrasal verbs waa maxay iyagu waxay leeyihiin they have their own meaning macna iyaga u gaarayo hal tusaale in ka bixino literalka waxaan soo qaadanaa tusaalahan imka stand waa istaag haddaan up ku daran karo stand up it has direct quite clear meaning to understand waxay leedahay macna cadaan oo la fahmi karo siday u qoranta manada macnaynaysa macnaheedu waxa weeye be in an upright position waa istaag oo qofku in position kan uu fadhiyo intuu ka kaco uu koriska istaaga bay noqonaysaa stand up هذا بيجي idiomatic وامح يقول حين they have their own meaning معنى يجوا قارة سيدي قرينا وما معناه يو تصارنا وحنا قافلا ويمسوا على إن إليك put هذا إنه out كده نوع على إنك put out put واديك ده out نوع دبده هذا برامج put out the fire how معناه دبده ده كتك إليك معناه يسقوا قاروا لي يو idiomatic وإحنا نقول هيك استنكش بختيبية Okay, سؤال استحاد بنقولينا سؤال استحادنا وحين كدينا what do I need to know what do I need to know about phrasal verbs about phrasal verbs مهم قف مركو دوني phrasal verb كانوا برتين وقان يشو لا قدم بمهم قف مركو دوني phrasal verb كانوا برتا وقان يشو لا قدم نحكي لي كو first مركو وجوه رئيسا you need واحد بانتي to know in أدوغاتو the meaning of the phrasal verb وين أدوغاتا the meaning of the phrasal verb معناها إريج phrasal verb كاوين أدوغاتا ومرك كواد what's with this ما literal phrasal verb بان سو idiomatic phrasal nexty مرك كوحكتنا أو مرك لبعض you need to have بانتي to know in أدوغاتا the grammar pattern نوع نشقة grammar هانو نقوله يو إريجن phrasal verb كا إماشة بو وراني إن أدوغاتا يدون You students, I hope you have just understood what I'm talking about. Inshallah, we will meet the next lesson. See you again. And I'm going to say with you, subscribe this channel.